warkii hore war soo dhaaf wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo ku amray madaxda maamul goboleedyada in aysan u safri karin dalka dibaddiisa marka laga reebo shaqo madaxweynaha uu u diray Axmed Macallin Fiqi iyo maamul goboleedyada oo luqunta iskula jira iyo hadalka wasiirka oo laga soo qaaday hal bacaad lagu lisay waxaan daboolka ka qaadi doonaa ujeedka wasiirka arrimaha gudaha uu ku xanibayo madaxda maamul goboleedyada waa warbixin degdeg ah iyo hayaanka news fadlan haddii aad ku cusub tahay page-kan Facebook follow soo dheh muuqaalkan like saar siina share garay si saaxiibo badan oo sidaadoo kale ay u gaaraan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah aan halkan ku soo gudbino dhammaantiin muuqaalkan like saara siina share garay aad baad u mahadsantihiin isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay waxaan ku bilaabayaa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya mudane Axmed Macallin Fiqi ayaa waxa uu ku amray madaxda maamul goboleedyada in aysan u safri karin dalka dibaddiisa amarkan waxa uu soo saaray xilli uusan wasaaradda si rasmi ah ula wareegin waxa uu yidhi marka laga reebo shaqo madaxweynuhu uu ogol yahay oo keliya ayaad u safri kartaan mana dhici doonto in safarro micno darro ah aad dalka dibaddiisa ku aadaan Axmed Macallin Fiqi iyo madaxda maamul goboleedyada xaalkooda waa uu cakiran yahay luqunta ay iskula jiraan waxa ay sameynayaan qorshe ay arrintaasi kaga soo horjeesan doonaan kulamo degdeg ah ayay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada kulanka ugu weyn oo toddobaadkan ay yeelanayaan waxa uu ka dhici doonaa magaalada Garowe ee maamulka Puntland martiqaadkaasi waxaa fidiyey hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani haddaba hadalka wasiirka arrimaha gudaha maxaa xilligan ku soo aadiyey maxaase keenay in xiisadda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe xilli dawladdan ay bilow tahay uu cirka isku sii shareero xasan sheekh maxamuud sheedda kore ayuu ka daabanayaa khilaafka u dhaxeeya wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxda maamul goboleedyada Axmed Macallin Fiqi waxaa la aaminsan yahay in loo keenay caburinta maamul goboleedyada si gaar ah waxaa loogu keenay in uu meesha ka saaro hogaamiyaha Galmudug Axmed Kaariye Qorqor oo si aad ah ay iskaga soo horjeedaan wasiirka arrimaha gudaha ninkan haatan loo magacaabay Qorqor horay ayuu uga soo eriyay wasiirkii arrimaha amniga ee maamulkaasi Axmed Macallin Fiqi oo la og yahay sida ay sheegayaan siyaasiyiinta in uu ku soo fashilmay wax ka qabashada xaaladda amni ee ka jirtay deegaanada Galmudug haddaba Axmed Macallin Fiqi sidee loogu aamini karaa xilkan muhiimka ah ee loo dhiibay sideese ummadda Soomaaliyeed xilligan uga filayaan isbeddel in uu ku sameeyo wasaaradda arrimaha gudaha aragtidaada qaybta hoose commentiga noogu reeb tan iyo kulan dambe nabadgelyo